قفك مسلم كاديجيس وحرام مالكيس سيدو حرام تويه inaad ka qayb qaadato dilka qofka muslimka ah adigoo soo shiraya ama adigoo qoraal ku sameynaya ama adigoo qowl kaga qayb qaadanaya ama adigoo ficil ku fulinaya intuba waa xaraam waana dambi weyn cuqubada ku dhacaysa qofka qof muslima xaq darro ku dilana quraanka ilaahay uu ku sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidku ku sheegay daliil aad u badan baa ku soo arooray waman qatala mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما شنتا الرباط با إلهي وهي قفك قردراء الدله قفك مؤمن قفك قردراء الدله فجزاه جهنم نارت جهنم الله إلهي إلهي وكو أبال مرينيا غضب على عرصنا دوشو كساري نعذلنا وكتوري عذاب كلنا والدياري انت سائلها وإسرائيل نارتانا وكواري يا أبو إلهي سبحانه وتعالى إلى أي أصحاب تقاركوت كنت جالس سيدا ابن عباس وكلا توبت بمرحبا قفك مسلم كايب النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما على معنى الحديث قفكو نفس بوكو سجيها إيا واسع إيا راحو انت أنو ديق مسلم فرها اللقلين مر الله مركا وديق مسلم فرها سارة أو قعنت سارة أو قولي فعل مذن كقايب قاطو markaas sababisa loo tuuraya markaas cirkiga dhulkuba ay ciriiri ku noqonayaan oo dhagarqabe ayuu noqonayaa mid godab xambaarsan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay maalinta qiyaame marka la isu yimaado faylka u horeeya la furaya ama waxa u horeeya adoomaha la xisaabinaya waa dhiiga oo qofkii la dilay baa isa soo taagaya hebel baa ay dilay ama hebeladana ay dilay bal waxay igu dileen ilaahay oo weydii arrintaasi arrin aad u adag weey waa dulmi waa xaq darro diiqad adduunyo iyo mid aakhiro iyo adduunyo la'aan iyo aakhiro la'aan ayaa qofkaasi xaaladiisu ay ku ururaysaa arrin ummadeennu ay fudaydsato weeye laakiin ayaan darro weyn oo ay eedi doonaan weeye ilaahayna addoonku inuu uga toobad keeno oo qofka muslimka aan qabyaalad lagu dilin oon kooxaysi lagu dilin oon manfaco iyo maal la doonayo lagu dilin layska nabadgeliya addoommaha ilaahay halkaasaa cuqubadaas waa cuqubadii aakhiro cuqubada adduunyaduna waxa weeye qofkan intoo la soo qabto in gacanta loo geliyo qofkan xaqdarrada lagu dilay xigtadiisii waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaanan falaa yusrif fi lqatli innahu kaana mansuuran ilaahay baa wuxuu uhi qofka xaqdarra lagu dilay xigtadiisii waxa aan siiyey awooddaana nabigaa fasiray calayhi salaatu wasalaam kii wax dilay waa in gacanta loo geliyo la yidhaahdo haddaad doontaan waa cafii kartaan haddaad doontaan waa qisaasan kartaan haddaad doontaanna mag baa ka qaadan kartaan qofka wax dilay waa in gacanta loo geliyaa ciddii kaa la dilay ehelkiisa ahayd haddii la dambabaso oo la qariyo oo la tahriibiyana kuwa kalena way kula jiraan wallahu aclam